dunidan aynu joogno inta badan waxaa caadi ka ah in wadamada qaaradaha adduunku marka ay u dabaaldegayaan dhalashadooda inay saartaan muusiga iyo heesaha kala duwan. laakiin wadanka Qatar ayaa waxa uu qaaday tallaabada mid ka duwan. markii uu dabaaldegayay maalinta dhalashadiisa qarankiisa waxa uu akhriyay Qur'aanka Kariimka. waxaana Qur'aanka akhriyay ragga askarta ee dul saaran kaarayaasha ama hubka culus ee wadanka. waxay noqotay arin loo baahan yahay wadamada Islaamku inay soo dhaweeyaan oo ay iska daayaan heesaha ay ku dabaaldegayaan oo ay ku akhriyaan Qur'aanka Kariimka. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay qaar ka mid ah ardayda ka soo jeeda qaaradda Afrika ee wax ka barata wadanka Turkiga. waxaa ku dhex jiray wiil Soomaali ahaa waxaana loo dhiibay mikrofoonka si uu u weydiiyo su'aal madaxweynaha. waxa uu ku bilaabay hadalkiisii: mudane madaxweyne, waad mahadsantahay. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. waxaan ka yimi wadanka Soomaaliya. waxaan wax ka bartaa jaamacadda Ankara. waxaana bartaa cilmiga siyaasadda. mudane madaxweyne, su'aashaydu waxay tahay: qaaradda Afrika inta badan waxa ku soo noqnoqda siyaasiyiinta kala duwan dhinaca fikirka iyo dagaalada sokeeye. labada qodob maxay idinka qorshaysan haddaad tihiin wadanka Turkiga? madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku yidhi: waad mahadsantahay Maxamed. qaaradda Afrika inta badan waxaa gacanta kula jira wadamada reer galbeedka oo sidii ay doonaan ka yeelay. waxaana uu yidhi: anigu waxaan fikir ahaan aaminsanahay in wadamada Afrika faraha laga qaado oo ay siyaasadooda iyo hawlahoodaba u madax bannaanaadaan. laakiin waxa uu yidhi: idinku waxay idin wax u baranaysaan inayd wax badan ka beddeshaan siyaasadda qaaradda Afrika. waa inaydin dhammaantiin dhexda xidhataan haddii dhalinyartu ay isku dayaan inay wax badan ka beddelaan siyaasadda qaldan ee Afrika ay aaminsan tahay intay wax bartaan. waxaan aaminsanahay inay iyagu wax walba la wareegi karaan oo ayaha dambe Afrika oo dhan ay gacanta ku qaban karaan. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxaa su'aasha weydiiyey wiilka Soomaaliga ahaa ee Maxamed Cabdullaahi. waxaana uu madaxweynuhu la kulmay ardayda qaaradda Afrika ka timi ee wax ka barata wadanka Turkiga ee xiriirka tooska ay leeyihiin wadamadii ay ka yimaadeen iyo wadanka Turkiga.